عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله سوماليات وإذن سلامي دما أنتينا ميل كستو هذا دونك كجوكتين صور دوادا كسور دوادا موقال كان يرو كوبان موقال كان وحروا إنا كسو قد بيو أرين يرو براروجين تيدي مودن أما دقنينا موقال كان وحو كسابسايا يعني براروجين وايا أما دقنين وايا waan jeclahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay adduunka ka joogto si gaar ah dadka ku sugan ama ku nool wadamadan Yurub inaan ku buraarujiyo ama oga digo arrinkaasi yar oo badanaan Soomaalida ay sameeyso una keeni karo culays hadii ay sameeyso marka muuqaalka ku soo dhawaada hala leeg gareeyo hana la share gareeyo u gaaro walaalaha kale u baahan arrinkaasi muxuu yahay arrintaasi waxa waaye waxaan ognahay markaan sharci dalbanayno waxa la isweydiiyaa marka hore sida caadiga balana la qabsadaa wadamadan Yurub balantaas markaad qabsanaysid waxa lagu weydiinaa magacaagii taariikhda aad dhalatay adresskaagii waxa laga yaabaa hadii aad tahay qof sharci leh in lagu weydiiyo photocopy sharcigaagii hadii aadan lahayn waraaqi wixii aad haysatid la tagi doontaa meesha waa sidaas marka arinta muhiimka ah aan rabo inaan buraarujiyo waxay tahay maalintii aad tagto meesha aad sharciga ka xariisanaysay Jarmalka hadii aad joogto waxa laga yaabaa inay noqoto Auslaandarka ama Rathaus-ka ay noqon kartaa waxaad xariisanaysay ku xiran tahay Itaaliya hadii aad joogtidna kuistuurada ay noqon kartaa ama kumuunaha ay noqon kartaa marka waxaan dhihi lahaa ha saxiixin warqad aadan iska huwinin maalintaas waayo badanaan markii meelahaas la tago sharciga laga xariisanayo warqadooyin la saxiixa marka warqadooyinkaas adigoon iska huwinin waxa ku qoran waanan iska aqrinin ama lagu aqrinin fadlig hasaxiixin sababtu waxay tahay markaad xariisanaysid deganaanshaha warqadooyin la saxiixa ka dhigan tahay waxaad aqbashay ama ogolaatay hadii aad dhimato hadii kaliya lala baxo xubnahaagi muhiimka sida kaliya ma la bixi karaa wax ka bedeli karta arrinkaasna ma jirto ehelkaaga qaraawadaada iyo waalidiintaada iyo walaalahaagi cid ay rabto ha ahaato cid wax ka bedeli karta arrinkaas aad adiga saxiixday malaha marka waxa laga yaabaa inaadan ku buraarugsaneyn arrinka kaas waxaan jeclahay inaad ku buraarugto maanta ka dambeeyo oo aadan saxiixin warqad aadan iska hubinin oo aadan akhrinin ama aan lagu akhrinin inaadan saxiixin waayo waxa laga yaabaa ogaal dar inaad u saxiixaysay hadhowtina dhibaato aad u fara badan kaaga imaan karto ama ehelkaaga iyo qaraabadaadii ooga imaan karto arrinka kaas marka waxaan dhihi lahaa ha saxiixin warqad aadan iska hubinin intaas rabay